Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal. Haddii qof uu qoro buug ka hadlaya waqti ka mid ah nolosha aadanaha, tusaale ahaan haddii qof uu ka qoro dagaalkii koowaad ee adduunyada ama kii labaad ama xilli uun ka mid ah xilliyadii dunida bini'aadamka uu soo maray, waxaa arkaysaa in buuggaas lacag kasta oo loo gaaro dadka ay ku gadanayaan, qofkii qorayna loo arkayo cabqari oo dunida wax badan ka dirsay, wax badan ka taray. Laakiin haddii loo sheego inuu dunida yaalo buug ka hadlaya nolosha aadanaha, afarta nolol oo dhan, caalamul arwaax, nolosha hadda aan nool nahay, xayaatul barzaqa, ta qiyaamaha iyo nolosha qiyaamaha kadib, kitaab ka hadlaya haddii loo sheego inuu dunida yaalo, way ku adag tahay inay liqaan oo ay oggolaadaan in kitaabka quraanku uu yahay buugga koobay wax kasta oo nolosha aadanaha ku saabsanaa. Saasoo kalena waxay ay diidayaan in ilaahay subxaanahu watacaala yahay qofka ugu xog ogaalsan addoomahan uu uumay, sidoo kalena uu yahay faatir samaawaati wal ard, khaaliq alkoon. Dadka runtu waa ogyihiin, laakiin